السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيادة وادين سلام يا سلام كتب وحنا وربنا إننا بوغانو ودمada kuwada yaala dunida iyo sida anagu aynu u fakarno iyo bulshada dadka sida u fakaraan ugu horeyn waxaanu soo qaadanaynaa qofka caadiga ah ee normalka ah tusaale ahaan qofka markuu soo kaco ka fakara ugu yaraan wax maalinta uu cuni lahaa iyo sidoo isbuucaas ama bishaas u bixin lahaa waxyaalaha dakhliga isagoo ku bixin lahaa sida biilkiisa iyo cuntadiisa iyo arrimaha qoyskiisa dhanka kale qofka markuu ku fakarayo inuu wax sameeyo tusaale ahaan marka aynu taagannahay reer galbeedka wuxuu ka fakaraa shay isaga u qaasa isla shaygaasna uu laba qaybood ay mas'uul uga noqonayaan qaybta koowaad inuu shaygaas isaga uu magac ku yeelanayo ama uu lacag ku sameynayo su-aasha ugu horeysa ay isweydiiyaan waxay tahay how to make money sidee lacag loo sameeyaa oo how to make money sidee lacag u sameyn karaa halka marka ay taagan tahay waxaynu soo qaadanaynaa dhallinyaradeenna fartameyada ilaa sodomeyada iyo wixii ka yar sidai u fakaraan qaarkood badankooda mahayn bal ila daawo muuqaalkan naagaha sunnagudada ragga cimri degdeg ayay ku ridaan war sooma aadnan arag 30 jir bidaar yeeshay oo cimri degdeg ku dhacay war sooma aadnan arag 40 jir qof aan gaarin oo sariir saaran yaa ka dambeeyay marka ciladaas waa naagaha sunnagudada iimaanka ayay laayihiin cid bilow aadana oo rag ah oo xamili karta marnaba oo adkaysan karta bataatanba ma jirtaba halka wadamada reer galbeedka isweydiiyeen su'aal la yaab leh dadkooda qof ayaa isweydiinaya haddana fakarayo haddii aan iska soo diyaarad u jirto masaafo dhulka 25,000 oo fiid anigoo wadan baarshood maxaa dhacay waa su'aal mudan in la isweydiiyey marar qaar haddana helisteeda wadato ninkan idiin muuqdo su'aashaas ayuu isweydiiyey kadibna wuxuu rabaa inuu xaqiijiyo su'aashiisii helana jawaabteeda uu isa soo tuuray wuxuu ku socdaa xawaare zaa'ida waxaana dhulka loogu xidhay shabaq loogu talagalay inuusan dhulka ku dhicin kadibna wuxuu si tartiiba ugu soo dhacay shabaqii loo diyaariyey bal dhan kale aan isweydiino odayaasheena qaar markay hadlayaan qaabkay u hadlaan bal ila daawo doon xaraaradii qayladii weligeeba ma ilaawi doono dad sharaf badan oo aad wanaagsan oo wasmada xiisadeeda yaqaan weeye dadka magacayga waxa la yiraahdaa Cabdulqaadir Fulay ayaa la yiraahdaa halka odayaasheena qaar ay ku fakarayeen su'aalaha noocan ah bila macniga ah bal aynu dib ugu laabano dunida su'aalaha markii la isweydiinay markii ay taagan tahay social media aynu ku hormarno su'aashan Chicken. How much money is in your bank account? Yes! I'll answer this. Probably like 5,000. Okay, what do you do for work? I do hair. What about you? About 250,000. 250,000. How much is in your bank account? Probably like 7,000. 7 bands. waxaynu soo gaarnay gabagabada muuqaalkeena bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka waxaynu halkan ka garanaynaa waliba ka fahmaynaa farqiga u dhaxeeya su-aasha ugu muhiimsaneed ee gabdhaha la weydiiyey waxaa ahayd imise lacag ayaa ku jirta bankigaaga gabar waxay sheegatay inay ku jirto bankigeeda 5,000 gabarna waxay sheegatay 250,000 gabarna waxay sheegatay 7,000 dunida caalamka markii la taagan yahay biolotiga ama nambarka koowaad haweenku maahayn ama boodin naagad in laga sheekeeyo uma arkaan balse waxay dunida u arkaan biolotiga maxaad higsanaysaa maxaa rabtaa inaad xaqiijiso halka dadkeena da'doodu dhaaftay 50 ilaa 30 iyo caqligooda ku soo aruuray ama ay ku fakarayaan inay ka sheekeeyaan boodin naagad kelmadda afkaaga ka soo baxaysa ma ogtahay inay ka turjumayso wax maskaxdaada ka guuxay ugu dambeyn ha noqon dadka adiga hadda soo daawatay oo noqo qof ka fakara mustaqbalka kuuma dhiirigelinaya barnaamijkan ee waxaa noo noqonayaa isbeddelka dhammaanteen nolosheen barnaamij midkan lamid intaynu kulmi doono siday nabadgelyo